bandhiga baabuurta ee ugu weyn caalamka ayaa ka socda Frankfurt. Shirkadda ugu weyn Jabaanka ee Nissan ee baabuurta ayaana gashay tartanka saacadaha oo keentay aalad cusub oo lagu xisaabinayo saacadda caaqilka ee Nismo. Waxay ururinaysaa xogta baabuurka iyo darawalka dhaqdhaqaaqiisa oo ay ku jirto xog ku saabsan deganaanshaha darawalka haddii aad doonayso inaad ogaato xaalkiisu marka jidka uu saaran yahay. Waxa kale oo lagala socon karaa qofkaasi qaar ka mid ah bogagga bulshada. kahor intaanay soo saarin shirkadda Sony gamekeeda ah dhammaan heesa dhammaan cayaara ee PlayStation-ka 4 waxay ku dhawaaqday inay hoos u dhigayso qiimaha micro console-ka la yiraahdo PS Vita. Aaladan ayaa si toos ah loogu xirayaa TV-ga waxaana lagu ciyaari karaa PS Vita iyo PSP. Waxaana sidoo kale aad ka heli kartaa muuqaalo si toos ah loo daawan karo iyo adeegyo kale oo TV-ga ah. Waxay ka bilaabaysaa dalka Japan horraanta bisha November iyadoo qiimihiisuna uu dhigmo $100. adeega muusiga sida tooska looga dhagaysto ee Microsoft Xbox ayaa loo furay cid walba. adeegani ayaa ilaa mar dhow waxaa laga helayay oo keliya Xbox iyo Windows 8 aaladaha ku shaqeeya, laakiin Microsoft ayaa hadda ka dhigtay mid bilaash ah oo ku shaqeynaya web player. waxaana uu ku shaqeynayaa sida appskii hore u jiray ee Spotify iyo Pandora, laakiin waxaa ku xiran oo keliya 100,000 halka Spotify 6 milyan oo qof ay ku xiran yihiin. waqti ayay u baahanaysaa in ay suuqa la qabsato. ugu dambayntiina shirkadda madadaalada ee Disney ayaa keentay aalad ogolaanaysa in cod la dhexmarsiiyo jirka bini'aadamka. farsamadan ayaa ku tiirsan qayb mikrofon ah oo codka u beddelaya signal electronic ah, sida marka qof loo marsiiyo far qof kale dhegtiisa oo ay samaynayso cod dabiici ah. dadka Disney ee aaladani wada ayaa waxay ku duubeen ishin denshin, halku dheg Jabaaniis ah oo micnaheedu yahay waxa maskaxdu ka fakirayso wadnaha ayaa gudbiya. markaa ma jiri doonto hoos u hadal dambe.